falaqaynta ciyaaraha Premier League ayaan eegi doonaa Liverpool iyo Brentford iyo sidoo kale Chelsea iyo Sunderland ayaan eegi doonaa oo maalintii Sabtida ah Super Saturday ciyaareen. Halka ciyaarta u horeysa ayaan ku falaqayn doonaa waa Chelsea iyo Sunderland. Chelsea ayaa gurigeeda ku marti qaaday kooxda promotion ka soo dalacday heerka labaad ee Premier League isla sanadkan imaatay oo Premier League cusub tahay maadaama laakiin sanado badan ay ka ciyaar jirtay ee kooxda Sunderland ee kabtankeedana uu yahay Granit Xhaka ayaa lagu martigeliyay kooxda Chelsea Stamford Bridge. halka ciyaarta qaybta koowaadba oo Chelsea ay gool la hormartay markay mareysay 4 daqiiqo waxaan u dhaliyay weeraryahanka ama garabka ugu ciyaaray ee reer Argentina ee Garanjo asoo caawiye ka helay Pedro Neto. isla Chelsea ayaa haddana 22 daqiiqo markay mareysay waxaa la barbareeyay intii qaybta hore lagu jiray kooxda Sunderland ayaa barbar la timid waxaan u dhaliyay weeraryahanka ama Eusebio ayaa u dhaliyay Eusebio waa weeraryahanka u dhilo ee kooxda Sunderland ayaa u barbariyay maadaama ciyaarta ay ku dhamaatay qaybtii hore lagu kala nastay 1-1 laakiin ciyaarta ayaa si fiican loo kala maamulaya halka Chelsea ay iidana fursado badan ay abuurtay laakiin kooxdan la dhahayo Sunderland iidana ma yareysana dab ma shidayso ugu dambeys ciyaarta ayaa qaybtii dambe labaad markii isku laabtay oo ciyaartii oo dhamaanayso oo gabagabo marayso ciyaartii ayaa Chelsea gool ku raacday kooxda Sunderland ayaa gool la timid ciyaartii oo gabagabo ah waxaan u dhaliyay ciyaaryahan la yiraahdo Talbi markii lagu daray 90 daqiiqo dheeriga 3 daqiiqo dheeri markay raacday 3 daqiiqo ay gool ku naxsaday Chelsea ciyaarta ayaa lagu soo daray 8 daqiiqo ayaa lagu daray balse markay mareysay 93 daqiiqo ay la timid kooxda Sunderland gool caadi aan ahayn goolka soo u saxay ciyaaryahan ku soo galay bedel 65 daqiiqo markii la soo dhuliyay waa ciyaaryahan asana weerar ayuu u dheelay kooxda Talbi ayaa lahaa wuxuu dheelay kooxda Sunderland ayaa ugu dambeys ay u soo dalacday lambarka kaalinta afaraad maadaama ay leedahay 17 dhibcood halka 4 gool ay leedahay laakiin Chelsea ayaa ku sii nagaatay kaalimihii hoos u sii dhacday maadaama ay leedahay 9 kaalinta 9 ay u dhacday 14 dhibcood ay leedahay kooxaha kale badiyay ayaa hor soo dalacay haddii aan ku leexdo Chelsea ugu dambeys Chelsea ayaa 2-1 lagu adkaaday haddii aan leexdo dhankaas kale iyo Liverpool ayaa godkeeda biyo u sii galay maadaama ay kulankii afraad oo xiriir ah oo Real Premier League laga badiyay waxaana ka badisay kooxda loo yiraahdo Brentford. Chelsea oo Liverpool oo marti ah kooxda Brentford ay marti u ahayd balse ciyaartadii aan falaqaynteeda tooska u dhalo waxaa ka maqnaa kuliyay Isak ayaa ka maqnaa weeraryahanka Liverpool maadaama dhaawac uu soo gaaray ciyaartii Champions League ah laakiin intooda kale way joogeen ciyaarta markay mareysay 5 daqiiqo waxaa loo gool lagu naxsaday kooxda Liverpool waxaa u dhaliyay Ouattara ayaa u dhaliyay kooxda Brentford 5 daqiiqo markay mareysay isla haddana markii daqiiqadii 45 ciyaarta qaybta koowaad ay dhamaanaysay waxaa u dhaliyay Kevin Shed ayaa gool u dhaliyay goolka soo u sii dheereeyay kooxdooda Brentford ayaa qaybta hore ku kala nastay intii bal aadin qaybta koowaad la aadin Brady qaybta koowaad intay dhamaanin waxaa u dhaliyay ciyaaryahankan Liverpool u dhaliyay Milos Chance ayaa u gool u dhaliyay 45 daqiiqo ciyaarta qaybta koowaad ayaa ku kala nastay 2-1 marka qaybta labaad la soo laabtay ciyaarta ayaa meesheeda kasii socotay kooxdan la yiraahdo Brentford ayaa heshay Rigooro waxaana goolka Rigooro keenay Van Dijk ayaa difaacooda kabtanka Liverpool ayaa qalad u galay ciyaaryahanka weerar ka mid ah Thiago lahayo Brentford daqiiqadii 60aad penalty uu soo istaagay Rigooro ama goolkulaad wuxuuna goolku sii dheereeyay goolka saddexaad ay dhashteen 3-1 balse Liverpool ayaa ciyaarta dhamaanaysay 89 daqiiqo markii Mohamed Salah ayaa gool u soo celiyay laakiin maadaama ciyaarta gabagabo ahayd ugu dambeys ciyaartii waxay ku soo ilaatay 3-2 ku raaxday guusha kooxda Brentford Liverpool idan hoos ay u sii dhacday waxayna sii aaday kaalinta toddobaad iyo maadaama ay ku jirto markii kaalin saddexaad kooxo badan ay soo badiyay sida kooxaha kala soo badiyay ayaa hor soo dalacay idan waxay sii aaday kaalinta toddobaad waxay leedahay 15 dhibcood 2 gool ay leedahay oo kaliya gool badan ayaa laga jaray marka ciyaarta ay saas ku soo laatay falaqaynteeni halkaas iyo
ciyaarteeni falaqeynta Premier League ayaan si soconeen haddii intana soo gaarto muuqaalka kuma sitiin like noo saar subscribe na haddii noo heen subscribe noo saar in muuqaalka noo sheegay